runtii waa nasiib daro kulankaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka Soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas oo soo baxo waxaas la yaab leh maanta oo dhan waa shiraynay dhowr maalmood horena waa shiraynay waxaa caddaatay in qoraalka iyo video ay dawladda sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa marka waxaa cad dawladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan uu nala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd mas'uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha muxuu ahaa madaxweyne waxyaabihii ugu dambeeyay ee aad ka wada hadlayseen ee dawladda ay u aragtay in aan laga gudbi karin oo keentay inay ku dhawaaqaan in kulankaasi uu fashilmo muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wada hadalladu ay socdeen waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay waxaa la isku khilaafsanaa ajandaha shirka iyo hanaanka shirka u soconayo siduu noqonayo waxaa nasiib darro ah in wada hadalkii oo socda uu ku soo gabagaboobay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajandayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan arrinta ajandaha ayaa la isku mari waayey maalinta horena saas ahayd laakiin markaan soo kala tegayno waxaan kusoo kala tagnay bal inaan wakti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cidda u baahan weliba isagu uu codsaday inuu la tashi soo samaynayo markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo warhadalladu sii socon doonaana waxaan aragnay statementii iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay marka annagu tuunkaas waa qabnay laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii u baahnayd in la wada ogaado marka mas'uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku noqdo kulan loo dhan yahay ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midowga musharaxiinta xubno kamid ah sida xogo hoosena aanu ku helayno in la ballaariyo gubasha in aad rabteen ayaa la sheegaya marka ma kaasaa kan la isku mari waayay runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka ururada bulshada madaxda dawladda maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal iyo madaxdii hore ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin samaysto laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah oo keliya kadibna ay ka hadlaan ajandayaasha shirka ee la soo jeediyey waxaa ka mid dabcan shirka wuxuu ku sabaysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed 17 September la gaaray isaga ayaa gundhig u ah waxaa kaloo jiray documenti ay kasoo shaqeeyeen dawladaha xubnaha ka iyo dawladda federaalka ah oo 16 February iyo 15 lagu qabtay Baydhabo oo isagana ah documenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa ka soo jeediyeen xalal waxaa kaloo meesha yaalay 8 February mar haddii xilhayntii madaxweynuhu ay dhamaatay iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dawladdu sida ay doonaan kadibna iyadoo jawigu degan yahay dadku isku calool fuyow yahay doorasho raalli laga wada yahay la aado qof walba la yaqaana roolkiisa ama maaragtay mas'uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin yaa mas'uuliyadda amniga leh yaa mas'uuliyadda howlfudeynta leh dawladuhu xubnaha ka maxay yeelan doonaan inkastoo abraacyadii hore ay wax ku dhignaayeen laakiin maadaama xilligii
madaxda xilka haysta ee dhamaatay in la helo waa muhiim arrimahaas ay arrimaha taagan laakiin maba laysla gaarin in ajandihii laysku afkarto madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey lagama hadli karo 8 February wixii ka dambeeyay lagama hadli karo amniga dalka anaa madax ka ah lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa anaa sidaan rabo u qabanaya haddaan waxaas laga hadlayn shirka doorashada looga hadlayo wuxuu yahay annagu waa garan weynay laakiin haddana waxaan furnaa albaab wada hadal iyo isqancin iyo in la turxaan bixiyo aragti kala duwanaanta hadday u baahan tahay la tashi sharcina sharciga loo noqdo hadday u baahan tahay la taliska siyaasadaha loo noqdo haddii ay u baahan tahay cid kale oo na kala qancixisana in fursad loo helo laakiin in albaabka lasoo xiro macnaheedu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed rajadoodii lasoo laabay ujeedooyin kale oo guracanna laga leeyahay mid waxaa jirta in beesha caalamka ay dadaal badan gelisay in kulankani uu noqdo mid miro dhal ah oo waxa shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ah doorasho heshiis lagu yahay ay ka soo baxdo sidee beesha caalamku u aragtaa in kulankii ay intaasi waday uu guuldareystay masay aragteen kadib markii warkaasi uu soo baxay wallahi wali lama aan kulmin beesha caalamka laakiin intaan la kulmin intaan oo dhan way ogaayeen waxyaabaha la isku hayo way ogaayeen farsi habka maarta shirku u furmi lahaa way ka warqabeen waxa looga hadlayo way ogaayeen hadda kulley iyada garwadeenka ahayd oo soo qabanqaabisay inuu shirkaan dhaco si ajandaha aan uga heshiino kadibna waxa ay la socoto dabcan annagu mararka qaarkood waxaan ka codsanay in ay ka noqoto garantoor laakiin waxay codsadeen in iyagu markhaantiyaalka noqdaan witness si kastaba ahaatee annagu waxaan rabnay wax aanan mugdi ku jirin oo miiska dushiisa yaalla madaxweynahana waxaa lagu kari waayey wax lala og yahay in ay noqdaan marka waxa aan lala ogeyn sababta u doonaya waxa weeye markii aan ka soo tagnay annagu iyo joogno oo nool magaaladii la joogno inuu been naga sheego oo ay yidhaahdaan iyagaa wax diiday oo runtii wixii lagu sifayn jiray allah u naxariista dhagabadan oo shabaab ku sifayn jiray inuu nagu sifeeyo dhaho jid iyo jihaadiid weeye hadda macnahaasi kolley waxay u taallaa dadka Soomaaliyeed iyagaana markhaanti ka noqon doona meesha dalka iyo dadku uu u wado dadkuna waa u wada jeedaa shacabka Soomaaliyeedna mas-uuliyadoodu waa ay yaqaanaan iyo madaxdooduba waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee caanadaasi dabada la qabtaayo dalkan inuusan meel xun aadin madaxweynuhu madaxweynaadkii hay-adaha dowladda federaalka waa u dhamaaday iyadoo aan wax kale laga gaarin nidaamka doorashada dadka Soomaaliyeed walwal badan ayay qabaan in madaxdoodu ay go'aan gaari waayaan doorasho lagu heshiin waayo dalkuna meel aan wanaagsanin uu ku laabto maxaa rajo ah oo dadka ku dhageysanaya aad haysaa wallahi madaxweynaha xilkiisu dhamaaday kursiga waa ku dhagan yahay oo in lagala hadlo ma rabiyo laakiin annaga halka waxaan u aragnaa wada hadal in lagu dayo in loo caqli celiyo in sharciga la xasuusiyo in dalka inuu sharci ku yimid loo sheego sharcigana uu ilaaliyo intaasaa anigu arkaa oo ay wado kaleeto oo dadka Soomaaliyeed maanta u furan male wado xoog uma furna wado qalalaas uma furna wado nabadgelyo darro uma furna maxaa yeelay dalkeedu waa dal jilicsan wadada u furan waxa weeye in lala hadlo loo caqli celiyo cid kastoo uu wax ka maqlayana ay waqti ku bixiso marka waan rajaynaynaa in ay caqliga wanaagsan iyo maskaxdu ay soo noqoto oo dalka taladiisa dadku ay u soo noqoto intaa waa rajaan qabnaa dhinacayna wax tanaasula ma samaynaysa si loo gaaro in doorasho loo dhan yahay loo aado annagu tanaasulka bil halkaaba u fadhinaa diyaar baan unahay tanaasul waxa laysku hayana waxa weeye wax shakhsiyadeena ku xiran oo aan ka tanaasuleyno hadda aan sheegna oo ma garanayno waxa aan rabnaa uun war wax credible ah oo ummadda Soomaaliyeed hadda u noqoto xujo sax ah oo qaanuuni ah oo dalkan dhismaayo wadadii uu ku dhismi lahaa aan isla afgarano way waxa laga hadlayo oo sharcigu uu noqdo waxa dhexda u yaala dadka maxaa yeelay ummad walba meel degan shuruucda hogaamisa shuruucduna waad ogtahay dee compromise mala shuruucdii la fuliyay leedahay marka waxaan rajaynaynaa wixii sharcigu qabo haddii annagu aan sharciga ku khaldannahay in noola sheego la yidhaahdo idinka waa halkaas ay u khaldantihiin haddii madaxweynuhu iyo cidda la talinaysana sharciga khaldan tahayna in loo sheego intaas uun baa muhiima madaxweyne marka madaxda maamulada kale ee dalka marka la fiiriyo hadda madaxweynihii ama dowladda federaalka dhinaceedii ayaa ku dhawaaqday in kulankaasi wax natiijo ah laga gaari waayo madaxdiina kale ee maamul gobolada shanta ah
ma kulmi kartaan oo xal ma keeni kartaan waa kulmeynaa waana kulmi doonaa madaxweynaha ruuxadiisa inaan la kulanno diyaar baa u nahay anta maanta markaan kasoo tegay lagu yidhi aan soo noqono cid walba oo danta maslaxadda ku jirta Soomaaliya inaan la kulanno annaga sarfanta kuma xirno waa la fariisanaynaa miiska laakiin waxaan rabnaa in la wada hadlo oo waxa sharcigu yahay laga doodo laakiin inaan